السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا أصحابتا halkan iga daawanaysa meel walba joogtaan isagoo muuqaalkaygu uu markaa idiin soo gaariyaba muuqaalkan waxaan doonayaa inaan kaga hadlo qarax weyn oo aan noociisa aan horay loo arag ayaa wuxuu ka dhacay mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee ciidamada Israel xaruntaasoo lagu sameeyo gantaalada markaasi xambaara madaxyada nuclearka waxaana banaanka u soo baxaya xogo runtii xasaasi ah oo Israa'iil ay isku dayday inay qariso waxaana aan rabaa inaan muuqaalkan kooban aan ku fiiriyo xaruntaanu maxay tahay qaraxa ka dhacay intee la eg yahay maxay tahay macluumaadka ka soo baxaya oo la qarinayay iyo weliba maxay tahay tuhumada ka dhashay xaruntan iyo wixii ka dhacay saacadii hadda la soo dhaafay soo dhawaada saaxiibyada sameeya waxaa ka mid ah gantaalada ridada dheer ama long range missileska waxa la yiraahdo kuwaasoo isaga gudbi karaya dalal iyo xataa qaarada kala duwan xarun markaa lagu sameeyo gantaalada noocaaya ayaa waxaa ka dhacay qarax aan noociisa aan horay loo arag waxaynu ka hadlaynaa qarax xataa dalalka dariska ah laga arki karayo iska badaa magaalooyinka iyo deegaamada ku hareeraysan halka ay xaruntani ay ku taalleen waxaa la odhan karayaa intii colaadahanu ay socdeen weli lama arag qarax noocan oo kale ah inuu gobolka uu ka dhacay ama xataa gudaha Israa'iil ba inuu ka dhacay runtii lama arag waa qarax marka noociisa aan hore loo arag su'aalo aad u tiro badan iyo tuhunana ay markaasi ay ku gadaaman yihiin marka la fiiriyo halka xarunta ah uu qaraxani uu ka dhacay ayaa magaalo magaceeda la yiraahdo Bet Shemesh oo ah meel u dhaxaysa ama magaalo u dhaxaysa Tel Aviv iyo weliba Jerusalem waxaa la leeyahay waa mid ka mid ah aagaga ugu populationka badan marka laga hadlayo dhulka Israa'iil maamulka Israa'iil ay hadda maamusho maapka markii laga fiiriyana halkan ay ku qiyaasan tahay halka magaaladaasi Bet Shemesh la yiraahdo ay markaasi ay ku taalo marka qarax aad u weyn ayaa meeshaasi ka dhacay xaruntan markii aan fiirfiiriyay waxyaalaha lagu sameeyo waa xarun ay waxyaalo kala duwan lagu sameeyo waxyaalaha lagu sameeyo ayaa waxaa ka mid ah sidaan idiin sheegayba gantaalada long range missileska ama gantaalada fogfog meelaha fogfog markaasi gaaraya waxaa lagu sameeyaa gantaalada difaaca ah ee lagu soo rido ama laga horgeeyo gantaalada kale sida waxa interceptorska la yiraahdo weliba noocyadooda sida kuwa arrow 2ga la yiraahdo iyo kuwa arrow 3ga la yiraahdo waxa kaloo lagu sameeyaa baa la yiri satellite launchers kan waa lagu sameeyaa baa la yiri ama qalabka laga rido satellite marka la ridayo naftigiisu waa gantaal marka waxa lagu fariisiyaa launcher baa lagu fariisiyaa markaas la ridaa sida gantaalka baasha lagu fariisiyo oo kale oo lagu qarxiyo weeye xataa waxyaalaha meeshan lagu sameeyo ay ka mid yihiin marka waa xarun aad muhiim u ah ciidamada Israa'iil waxaana la leeyahay waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waxyaalaha la sheegayo in xaruntan lagu sameyn jiray ayaa waxaa ka mid ah gantaalada markaasi xambaara madaxyada nuclearka ah ayaa xataa lagu sameeyaa ay leeyihiin qaar ka mid ah dadka arrintan ka hadlayay saacadii hadda la soo dhaafay marka xarun noocaas ay ahayd xalay 11 PM wixii ka dambeeyay ayaa marka meeshaasi waxaa ka dhacay qarax runtii aad iyo aad u weyn meel walbana laga arkay markaad fiiriso muuqaalada laga soo duuduubayo qaar ka mid ah waxaad arkaysaa xataa in dhowr boqol oo mile ama dhowr boqol oo kilomitir xataa laga arki karayo dhankaas iyo dalalka sida Jordan oo kale Masar oo kale Lubnaan oo kale meelaha oo dhan laga arki karo ayaan aaminsanahay markii la fiiriyo inta uu la eg yahay qaraxani shirkadda meesha degan ayaa waxay tahay shirkad Israa'iil ay leeyihiin oo markaasi shaqooyinka hadda aan idin sheegay markaasi qabata magaceedana Tamar ayaa la yiraahdaa waxay shirkaddan ay sheegtay in qaraxani uu ahaa qarax pre-plan experiment inuu ahaa bay sheegtay pre-plan experiment wuxuu noqonayaa haddaan si fudud isugu dayo inaan u fasiro waa tijaabo la sii ogaa maybe waxbay tijaabinayeen ama gantaal ama hub ama tijaabo kale waxbaa la tijaabinayay marka waa tijaabo lasii qorsheeyey ayay ahayd bay leeyihiin wixii meesha ka dhacay laakiin arrintaasu ma aysan noqonin mid laga iibsaday
shirkadaas iyo weliba Israel aad ayayna arrintaasi markiiba u noqotay mid fashila waxyaalaha fashilinaya oo lagu diidayba ayaa waxaa ka mid ah dhowr waxyaalood marka ugu horeysa waxaa leeyahay qaraxa intaan la eg ma noqon karayo wax experiment waxyaalo yar oo kooban oo la kontaroolay oo la xadadi karayo weeye ayagu weli waxay leeyihiin waa controlled ay leeyihiin wax meesha ka dhacay laakiin ma wax control obeto marka la fiiriyo cadada iyo qaraxa intuu leegyahay arrintaasi aad baa loo diidan yahay marka labaad waxyaalaha lagu yaqaano in waxaanu experiment ay tahay ayaa waxay tahay dadka deegaanka degan waa loo sheegaa clash report oo kale warbaahinta la yiraahdo ayaa su'aasha duldhigaysa oo waxay leedahay looma sheegin dadka deegaanka degan in waxaanu ay experiment ahayd lama ogeysiinin marka inta badan shirkadaha noocaana ee hubka iyo waxyaalahan sameeya marka ay doonayaan inay wax tijaabiyaan waxaasna ay isleeyihiin dadka deegaanku way ka argagaxayaan ama jugta culus ama dabka ka dhalanaya ayaa dadku way baqayaan isleeyahay dadka warning baa loo sii sheegaa waxaa la yiraahdaa maalin hebel taariikh hebel saacad hebel waxaa dhici doona qarax laakiin dhibaato ma jirto waxaa la tijaabin doonaa sidaasaa dadka loo sheegaa marka waxaa la leeyahay sida warshad noocan oo kala ah qalabka sidan xasaasiga u samaysa kamida kuwa ugu muhiimsan ciidamada Israel inay experiment sameynayso dadkana aan loo sheegin suurtagal baa unless ay dhaceen wixii ay tijaabinayeen inta qaldameen wixii ay filayeen wax ka weyn ay markaasi ay meesha ka dhaceen marka arintaasu ma aysan noqonin arin markaasi laga iibsaday laakiin waxa hadda soo baxaya xogo kale oo shaki leh oo markiiba dhinaca kale ayaa loo gadiyay marka la fiiriyo macluumaadada publica ee arintan laga heli karayo waxa la leeyahay maadaama meeshan lagu sameyn jiray gantaalada nuclearka xambaara waxa suuragal ah in Israel doonaysay inay weerar nuclear ay markaasi ay fuliso ama inay samayso tijaabo nuclear si ay markaasi weerar nuclear ay markaasi ay u fuliso marka waxba qaldamay baa la leeyahay waxa markiiba meesha soo galay arinta la xiriirta inay jirtay suurtagalnimo ah inay doonayeen inay maybe ay nuclear ay ridaan ama ay tijaabiyaan laakiin tijaabadoodii isbedel xoog leh oo markaasi uu ku dhacay waayo waxaad qiyaastaan xaaladda hadda bariga dhexe ka taagan xarun lagu samayn jiray nuclear cid weerarta aysan jirinin in dhacdo noocaana ay ka dhacdaa ma sheegin in musiibo ilaahay cidka ka soo riday ayagu ay ku qarxday waxay maleegayeen maybe ayagana ku qarxeen waa suuragal laakiin waxa markiiba soo baxaya markii la fiiriyo dhanka X-ka dad badan oo X baad ah oo arrintan ka faaloonaya qoraalada marka aad fiiriso sida looga comment garanayo su'aalaha la iska weydiinayo iyo tuhmada ku gadaamanba waxa markiiba soo baxaya macluumaad la xiriira in meeshaani ay ka socotay qorshe la xiriira in la doonayo in nuclear maybe la rido halkee lagu riday ma naqaano waxaa sidoo kale aan weli la ogeyn macluumaadka dhabta ah ee meeshan ka dhacay sida qasaaraha wixii qaldamay wixii la doonayay in la sameeyo arrimaha ayo dhan waa kuwa su'aala ka taagan yihiin laakiin dadka hadda bannaanka ka jooga ayaa waxay bixinayaan sawirro ah in meeshaani ay ka socotay arrin noocaasa oo maybe nuclear la doonayay lagu rido xisbullah baa lagu ridayey jamhuuriyadda iiraan baa la doonayay in lagu tuuro boqosho kale ayaa socday lama garanayo Israel waxay haysataa sida la sheegay nuclear weliba aysan sheeganin publicly laakiin la og yahay oo hoos ay markaasi u haysato intii colaadu ay socotay waxay ogeyn in dhowr baro kala duwan xarumahaas nuclearka ay jamhuuriyadda Iiraan ay weerar runtii yaab la ay ku qaaday dabcan la burburinin baa la aaminsan yahay oo waxooda ay weli haystaan laakiin madaxyo nuclear way haystaan haddii xaaladdu ay adkaatana inay isticmaali karaan ayaa la aaminsan yahay muddooyinka hadda lasoo dhaafay dad kala duwan oo saraakiila oo reer Maraykana uu ka mid yahay Colonel Mark Kroger ayaa sheegay in haddii xaaladdu ay adkaato Israel ay suurtagal tahay inay nuclear u isticmaasho jamhuuriyadda Iiraan aad ayaa loo soo celcelinay professor ayaa ka hadlay dad saraakiila oo khubra ah reer Maraykana ayaa aad ugu soo celcelinay muddooyinka hadda lasoo dhaafay in haddii Israel ay aragto inay dagaalkan ay kula jirto Iiraan iyo kooxda Xisbullah ay xaaladdu ay ku xun tahay
in backupka ay haystaan ama halka ay doonayaan inay u laabtaan ay tahay nuclearna isticmaala haddana waxyaalahan dhacaya bal wixii dhacdadan ka soo baxa oo inta hadda aynu ognahay dheer bal muuqaaladeena dambe ayaynu markaas ku fiirin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu